aweysi wanaagsan kula soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararka caawa waxa ugu waaweyn Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa Puntland iyo dawladda federaalka ku eedeysay dagaalka tukarraq ee maanta halka ay Puntlandna sheegtay in duulaanka ay Soomaaliland soo qaaday dagaalka sokeeye Yemen 4 sano ka soconayay ayaa saameeyay bulshada waxaanu daawan doonaa wiil yar oo aabihii ku waayay duqeynta halkaasi ka dhacday gobolka ay abaartu ku habsatay ee Cape ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxay tahay dhul deegaankii ugu horreeyay ee loo asteeyay in qasabadaha biyuhu isku maalin qura wada istaagaan taasina may dhicin sababta ayaanu eegaynaa caawa dagaal ayaa saaka dib uga bilowday deegaanka tukarraq ee gobolka Sool dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in dhinacyada dagaalamaya ay ciidamo badan iska dileen dhaawacuna badan yahay dagaalku wuxuu dhaxeeyaa Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland labada dhinacba midka kale ayuu ku eedeynay inuu dagaalka soo qaaday waxayna kala sheeganayaan guulo tukarraq waxay u dhaxaysaa Garowe iyo Laascaanood tan iyo horaantii sanadkan waxa halkaasi ka taagnaa xiisad colaadeed wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa shir jirayd saaka qabtay oo uu ku sheegay inay deegaano dheeraad ah qabsadeen saaka markay waqtigu ahayd 5 barkii way laba aag dagaalka weerarka soo qaadeen labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aag ba ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa si mugle bay isaga caabiyeen dagaalkii bilaamay 5 barkii wuxuu soo gabagaboobay abaari 10 barkii labada aag ba si baaxad leh baa loogu jabiyay waxaa la gaaray beesaskoodii ay fadhiyeen taliska u hayay godqaboobe waa la dhaafay Soomaaliland ayaa sidoo kale duulaanka ku eedeysay dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo diiday inay ka hadasho laakiin maamul goboleedka Puntland ayaa iyagu dhinacooda ka hadlay dagaalka waxayna ku eedeeyeen Soomaaliland inay 3 jiho ka soo weerartay si aad la socotaan caadana u ahayd dhaqanna u ahayd maamulka Soomaaliland baa saaka 5 bar subaxnimo soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka tukarraq waxay ka soo weerareen 3 aag oo kala duwan ay ka soo weerareen 3 aag ba ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen sidoo kale waxa halkan ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga hayo intaba madaxweyne Trump ayaa gabi ahaanba ka baxay oo joojiyay kulan madaxeedkii uu bisha dambe la lahaan lahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kadib oo kaasoo ka dhici lahaa dalka Singapore warqad laga soo saaray aqalka cad ayaa madaxweynuhu ku yiri aad baan u quudaraynay inaynu kulanno laakiin nasiib darro marka la eego cadhada badan ee ka muuqata iyo cadaawadda waxa ay noqotay inaad ku sheegtay war saxaafadeedyadii dhawaan inaanay ahayn buu wax fiican inaynu yeelano kulankii muddada dheer la qorsheynayay saacada ka hor intaan la joojin shir madaxeedka ayaa Kuuriyada Waqooyi sheegeen inay burburiyeen goob ay nuclearka ku tijaabin jireen saxafiyiin shisheeye ayaa la soo xulay oo halkaasi la geeyay si ay goobjoog uga noqdaan burburinta xaruntaasi Pyongyang faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga iminkana dalka Yemen halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo qof dagaaladii bilaabmay 4 sano ka hor oo 250 qof oo kamid ah dhintay labadii bilood ugu dambeeyay malaayiin qof ayaa barakacay BBC-du waxa ay heshay sawirro nolosha dadkii dagaalkaas u dhibaateeyay digniin muuqaalo naxdin leh ayaa ku jira warbixintan maxamed xaraare ayaa inoo haya
waxay ahayd maalin farxadeed oo muusig iyo ciyaaro dhaqameed loogu dabaaldegayay aroos iyo dadabgal dhallinyaro. cali waa nin muusiga yaqaan oo noloshiisa ku maareeyay inuu ka shaqaysto xafladaha noocan oo kale ah. 3 ka mid a walaalihii iyo wiilkiisa Samiix waa kan sita fanaanada cagaaran ayaa kala soo qayb galay xafladdan. sawirradan waxaa duuban in adeer u ahaa wiilka guursanayay. dadku way daanshoonayaan oo dabaaldegayaan. in ka badan 150 qof ayaa daanshoonaya, cayaaro kalena way ciyaarayaan. waxay raacayaan caadooyinkii dabaaldegga Yemen. dabeed waxaa dhacay cirka oo laga duqeeyey. dabaaldeggii waxa uu isu rogay meel dhiig ku daatay. weerarkan cirka ah waxaa soo qaaday dowladda Sacuudi Carabiya. 22 ruux oo ay ku jiraan cali iyo 2 walaalihii ah ayaa markiiba ku naf waayey. wiilkiisa Samiixse wuu ka badbaaday. sawirrada aad daawanaysaa waa kuwa naxdin badan leh. waa Samiix oo ka sabri la aabihii. waa 5 jir la fahamsiin waayey inuu aabihii dhintay. شنب أبو الزبوب بعد خذ أبو الزبوب خذ أبو الزبابة أبو الزبابة أبو الزبابة waxaa agoon iyo rajo la'aan ka dhigay dagaalka Yemen ilaa uu waaga bariyo. waxa uu la jiifay aabihii. bil kadib Samiix weli waxa uu ku jiraa xaalad cagkaran. adeerkii ayaa inoo sheegay in waxa keliya ee uu Samiix soo celceliyo tahay in aabihii diyaarada dileen. keligii maaha berimageydada uu dagaalka Yemen saameeyey. hooyadii ilmo yar ayay soo tuurtay markay maqashay warkan. durbaankii dalooshamay ee cali ayaa daaradda ka lusha si loo xasuusto. daryeel iyo dhaqaale la'aan dartii reerkani mustaqbalku wuu ku ciiray. dagaalka Yemen wuxuu galay sanadkii 4aad. bishii u dambaysana dagaalladu waa sii 2 jibaarmeen. weerar kale ayay halkan ku soo qaadeen taxaalufka Sacuudiga. waa goob saldhig u ah dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta oo dhexda kaga yaala aag rayidku ku badan yahay. intii ay qolyaha badbaadadu dadka gargaarayeen, garneel kale ayaa soo dhacay. dadka deegaanka ayaa kala yaacaya iyagoo ka baqaya in madaafiic kale ku dul dhacdo. 2 weerar oo dhanka cirka ah oo isxigxiga ayaa lala beegsaday isla halkan yool. dhacdooyinkan waxaa lagu tilmaami karaa dembiye dagaal. malaayiin ayaa ku naf waayey. welina ma muuqato rajo nabadeed. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. militariga Nigeria ayaa hablaha iyo dumarkaba kufsada, kuwaasi oo ka soo firxaday goobaha lagula dagaalamayo kooxda Boko Haram. hay'adda Amnesty xuquuqda bani'aadamka ayaa sidaasi sheegaysa. ciidamada ayaa raggii qabay iyo haweenkoodii kala reebay, dabeetana dumarkii gooni u kufsaday. militariga Nigeria ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay iyo been cad. koox caalami oo baadhisay diyaaradii Ukraine lagu soo dul riday July 2014 ee Malaysia Airlines duulimaadkii tirsigiisu ahaa MH17 ayaa sheegay in guuto ciidanka Ruushka ay bixisay gantaalka waxa lagu toogtay ee Bok. waxayna sheegeen in gantaalkaasi laga soo ganay guutada 53aad ee difaaca cirka ee Ruushka. way dafireen inay wax lug la ku lahaayeen. 27 qof ayaa dhimatay, ku dhawaad 60 xaaladoodna waa la xaqiijiyey oo ah cudurka Ebola oo ka dilaacay dalka DRC Congo. laakiinse iyadoo hay'adaha caalamigu dadaal ugu jiraan hakinta faafidda cudurkani, ayaa waddanka Congo uu tirsanaya khibrad dheer ah oo uu leeyahay cudurkani si uu xakameeyaan. waa tan Suhayba Maxamed Badqas oo inoo soo jeedisa. hilibka daanyeerka iyo kan fiidmeerta oo qalalan ayaa la iibinayaa. hilibka duurjoogtana halkan waa laga jecel yahay, laakiin waxaa laga cabsi qabaa in duurjoogta qaarkood ee lasoo ugaarsada ay keeni karaan caabuqa dilaaga ah ee Ebola. aad ayaan u jeclahay hilibka duurjoogta. weligay kuma xanuunsan. ilaa yaraantayda ayaan cunayay, kamana dhargo.
kani waa cilmi baaraha aqoonsada ebola sanadkii 1976kii markaa wixii ka dambeeyeyna waxa uu ka shaqaynayay la tacaalidda cudurkani waxa uu sheegayaa in hilibka duurjoogta uu sababayo caabuqa ugu horeeyo laakiin khatarta ugu weyn ay tahay sida dadka ay isugu gudbiyaan waan leenahay xirfadaan wax uga qabanno cudurkan ka hor intaanu noqon xaalad bani'aadannimo oo la mid a tii ka dhacday galbeedka afrika jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo 9 xanuun ayaa ka dilaacay uuna ka mid yahay kan hadda waxayna dhaceen 40kii sano ee la soo dhaafay xaaladii ugu xumaydna waxa ku dhintay 280 qof heerka khibraddan ayaa ah mid la adeegsan karo waxaannu aad ula yaabnay in inta badan deegaanada aannu booqannay ay leeyihiin qorshe dhibaatooyinka loogaga jawaabo iyo weliba guddiga ka jawaaba musiibooyinka waxaana laga doonayay inaannu samayno ayaa u badnaa inaannu dhanka farsamada uun ka taageerno dabcan dalku wuu wajahay la tacaalidda ebola iyo in laga hortago inta ay yar tahay saamayntiisa balse walaaca dhabta ah ayaa ah haddii uu ku faafo caasimadda kinshasa in ay adkaan doonto in la xakameeyo haddaba magaalada waqooyiga dhacda ee mabandaka waxa ay la daalaadhacaysaa xakamaynta cudurkan waana mid heegan loogu jiro balse waxaa jira qaabab looga hortagi kara ebola bukaanadanna waxaa lagu karantiilaa laguna daweeyaa xarumahan dadka la xiriira iyo shaqaalaha caafimaadkana waa la talaalaa marka waxaa jira rajo ah in faafidda cudurkan la xakamayn karo caawiyo ciyaarahana neymar xidiga kubadda cagta ee reer Brazil ayaa kooxdiisa qaranka ee Brazil la tababaranaya waxaana uu ka soo kabanaya dhaawac hore u gaadhay waa ciyaartooyga adduunka ugu qaalisan waxaanu ka ciyaaraa naadiga ama kooxda Faransiiska ee PSG laakiin lug ayuu ka jabay bishii February taasi oo keentay inuu intii muddo fadhiyay muddo dhowr sano ah Cape Town waxaa ka jira abaaro dhowr bilood uun ka hor waxa ay qarka u saareed inay noqoto mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu weyn ee qasabadaha biyuhu ay istaagaanba dhowaan waxoogaa ayaa u kordhay laakiin lama joojin xayiraadihii adkaa ee biyaha lagu soo rogay cabdirasaaq xaaji maxamed tiraad ayaa ka warramaya biyo yaraanta Cape Town waa digniin saadaal cabsi leh kaydiya biyaha ama waxay noqon mid joogta maalin walba dadka degan Cape Town waxay caagadaha ka buuxsanayaan qasabadaha dawladda hoose ama meelaha biyaha leh sanadkiina soo dhaafay laakiin maalintii kama dambaysta ahayd ma timi kumanaan kale oo dheeraada ayaa iman lahaa oo biyo raadinaya sababtoo ah qasabadihii way biyo beeleen laakiin maalintii baaba'a ee la filayay Abriil may iman magaaladu waxa ay leedahay 6 biyo xidheen oo biyaha siiya Cape Town meelaha qaarkood biyaha kaydkii kor bay u yara kaceen laakiin maalintaa kama dambaystiihii ma noqonaysaa cabsi dhaba waa hawl iska caadi ah dabeecadda bini'aadamka ayaa sidaa ah markaan gargaar yar helno waan isdhigannaa dib ayaannu ugu noqonnaa howlaheennii hore ha yeeshee aasaaska dhibtani weli lama xallin waa inaan ku celcelinnaa dadka qaar ayaa waxa ay ku murmayaan maalintaa kama dambaystiihii mid loogu talagalay taagtigoo dadka lagu bajinayo si aanay u isticmaalin biyo badan oo laga yaabo heer in ay gaadhaan musqulahooda biyo inaanay ku furi karin taasoo lagaga bajinayay dadka deggan magaalada Cape Town laakiin cabsidii dad badan bay eriday kuwii dalxiiska u iman lahaa waxaan aqbalayaa in ay cabsi gelisay dad badan oo ganacsi badani ay bilaabeen in ay arkaan saamaynteeda laakiin cidna naguma odhan waxaan iska joojiya sababtoo ah waxay dhaawacaysaa ganacsigayga waxay doonayeen ficil dawladda ah waxaana jiray tallaabooyin dawladdu qaaday heer qaran iyo mid dawlad hooseba kuwaasi oo ahaa in la yareeyo isticmaalka biyaha si aanay u iman maalintii lagu magacaabay tii masiibada Cape Town hawadeedu waa sida Mediterranean-ka xagaagu waa kulayl qalalan jiilaalkuna waa yara qabow biyo leh jiilaalkii waxaa ka hadhay bil magaaladuna waxa ay rajaynaysaa inay roobab hesho si biyo xidheennadu biyahoodu kor ugu kacaan haddii biyuhu kor u kici waayaan waxay noqonaysaa cabsi in qasabadihii la xidho wararkan iyo kuwii ugu dambeeyeyba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogga bbcsomali.com intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna caawa waa ku mahadsantihiin daawashadiinna intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo